barnaamijkan oo in muddo aba telefishanka iyo raadiyaha Djibouti aad kala socoteen waxa aan cadadkiisan gogosha ugu dhigi doonaa sidii inoo caadada ahayd 5 qof oo dhalinyaro ah oo diyaar u ah tartankan inay ka soo qayb qaadato kulli qof baa ka soo bixi doona qofkaasina waxa uu u gudbi doonaa kaalinta labaad ee tartanka balse intaas oo dhan ka hor Cabdinuur Allaale codsi ka yimiday shaqaalaha iyo inta inagu hareeraysan waxa ay yiraahdeen goormeen ugu dambeysay inaan maqalo heeskii ahaa adiguna sacaaday ina mayla socota tartankay ku jirtaa ha inaad heeskii noogu luqaysan jirtay shaqaalaheena idaacadda iga codsatay ha sanqad caruureed sugi maaya caanaha jacaylsayma weeyaan سيركو خليلو انتو صخورتا كاجرو ثم الخخاخات كوكيلي أضاسي حناي ساران سير وحان قبو تخون بانسد مودا ولي وي صويران تخي halkii xaqan sabotiga sacabada ruuxayo sided kuniya boqol mayl adiga oo socdaal tagay inaad saacad libidha ka siisan maayo waxaan ahay sacaaday surinka kaarkaaye adiguna sidee tahay ina may la socotaa waxa ku jira heeskan faadumado ku haysa saanqaad caruureed sugi maaya caanaha waalidkii u soo sido sheero la siiye saxan saxawd goombay saadaashu sheekbo sacba weel dhalaayay qofku uu dhoofay baahayd bariis buu noo dhoofay war baan haya marka laba bilood dibadeed buu imanayaa waa tahay sheekaduna waa sheekada run ah ee ma ruwaad kuma jirin توكل لك الشكين كرينا ما wax badan bal Cabdinuur oo mala awal nooga sheekayso heestii tufaaxi aan tirsaday habeenkii dhaweyd waadigii lahaa mar aan walaalaha la igu heesay laakiin imika waa iska miir qaba laakiin bagad Cabdinuur imikana noo sheegtay qisad runa iyo jacayl runa oo ku soo maray iyo heeskaasi saacada sirtiga aad waana markii ugu horeysay ee su'aal la iga weydiiyay heeska aad baad ma santahay adiguna Cabdinuurow waa tahay markan iyo haatan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow saacado oo dhanna nolol saacado oo wanaagsan baan u rajaynaynaa kol hadii ay ku jirtay heeska Cabdinuur jacaylkii runta oo haleelay iyo halkii laga abaaray si kasta baa noqoto ka qayb gala tartanka barnaamijka xulashada hobolada oo ku guuleysta garamo iyo koofiyado idinkoo ka jawaabaya su'aashan gondadaca barnaamijka iyo furitaanka qofka u horeeya ee furi doona waa Nagruuma Maxamed Nagruuma magacaaga saddexan baad ku bilaabay magaca fanaanka aad dooratay kadibna waxaad noo sheegi doontaa heesta aad tartanka kaga qayb qaadanayso soo dhawow السلام عليكم marka horeysa وعليكم السلام ورحمة magacayga waxa la yiraahdaa Nagruuma Axmed Xuseen fanaanadan jecelahay waatay hor joogta Roodamash balse waxaan ka riwaayay in heesta soo qaadaysa deegaamka ayaan gaarsiin ka riwaayay imikii ahaanteed waxaan ka soo qayb galayaa Xabiib Balbalaaf heesteedii Xabiib Balbalaaf heesteedii oo tee'adii aan kale baashahaygo waayahay maxaad Xabiib Balbalaaf u dooratay ya maxaad u dooratay Xabiib Balbalaaf بان هسه waxay cajibsay eriyadeeda aan sida ugu looqaanaysa muraha ha okay fanaanadii inaad noqoto darabtaa soo maaha ha in fanaanad qaran noqdo dalkayga soo baxaan rijin fanaanad qaran inaad noqoto doonaysa allah kula qabto insha Allah hay balankii ana furaaye beeni wacadkii ka jabi boodada maantana baryo samaye ragu bardhigi jiray haween baadilkooge iga goosan biilide iga jooji baana xiibay tegay ama caashiq laga buray anaa buuxinay kale baashaygo jacaylkeeni baabay dib u soo bilowne bedka kale qaada
aado beri samaadkii iisoo bannaan baxay ana kuu baneeyayo bogan waaya hawshee dumar waa bahaayine mar dambaan baraarugay miyadii bugtaa weli mise waadi baashiri igaa qaad bariidada sidaad iigu baaqday baananaa kuugu baahde kale baashahaygow jecelkeeni baabay dib u soo bilowne dib u soo bilowne halkaa joog nagruuma axmed waan ku salaamay markaan dib isugu noqday aragtidaydii guud soo galitaanka hal baan ku siiyey codka 3 baan ku siiyey durbaan la socodka 3 baan ku siiyey fiisiga iyo tilmaanta 4 baan ku siiyey erayada muujintoodana 4 baan ku siiyey nagruuma axmed habkaad masraxa u soo joogsatay waxaan ku siiyey xabad codka waxaan ku siiyey 3 ridmiga 3 baan ku siiyey jeestiga 4 baan ku siiyey habkaad midhaha noo soo gaarsiinaysana waxaan ku siiyey 4 nagruuma axmed soo joogsiga masraxa hal baan ku siiyey codka 3 baan ku siiyey durmaanka ama tembada hogaaminaysa heeska 4 baan ku siiyey jirka iyo shucuurta iyo macninta aad ku macninayso gacanta heeskana 4 baan ku siiyey codkaaga iyo hadalladana soo gaadhaya sidaan u fahmnayna 3 baan ku siiyey nagruuma axmed soo galidda waxaan ku siiyey 1 buuga waxaan ku siiyey 4 ridmiga waxaan ku siiyey 4 jeestiga waxaan ku siiyey 3 sad buuga noo soo gaarsiinaysayna waxaan ku siiyey 3 bon chance nasiib wanaagsan waa tahay dumarku intii oo waxay doonaan iska sameeyaan unbaa marka dambe ay yidhaahdeen dumar waa bahaayine mar dambaan baraarugay miyaad ii bugtaa weli mise waad i baashiri nolosha macaankeedaaba dee saa ku samaysan in cid adag oo lagu tiirsado waa inay jirto dabcan rukun adag oo lagu tiirsado inuu jiro jiljilaacii iyo raaxadiina waa inay jirto ilaahay baa subxaana wa tacaala labadaba sidaa u sameeyey markaa waa ku qasbantihiin inaan markaan qaldanno idin idhaahno dumar waa bahaayine mar dambaan baraarugay ha oodna saamaxdiin weliba si kaliya laaba waa tahay fuwaad axmed mikrofoonkiiba adiga kugu soo dhawaaday wuxuu soo socdaba markii ugu horreysay jacayl uu ku haleelo noloshaada intii fanka aad ku jirtay gaar ahaan goormay ahayd baad u malaysaa ma xasuusataa bise dhowr jacayl baa ku helay waxay ahayd markii ugu horreysay jacayl heleelo dhowr bay ahaayeen baan malayn hoostii wax ka leeyihiin ma garanaysaa anu jacayladu way igu badnaayeenba way kugu badnaayeen aad bay igu badnaayeen marka waxaa laga yaabaa in waqtiba male malaha bil kasta jacayl baa ku hela waqtiba male bil kasta jacayl cusub baa ku hela hambalyo fuad waa tahay markan iyo haatan waxaan u yeedhi doonaa gabadha labaad ee tartanka ka qayb qaadanaysa intaasina aan kaftanka uga imaado saamiye ibraahim mikrofoonka kusoo dhawow magacaaga oo saddexan magaca fanaanka aad dooratay iyo heesta aad tartanka kaga qayb qaadanayso soo dhawow horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantihiin sida fiican inoo soo dhaweyseen anuu magacayga saamiye ibraahim baa la idhahdaa waxaan halkan u imiday inaan tartanka ka qayb galo markaa dabadeedna waxaan doonayaa aamino faaraxaysteedii inaan ku maro markaa dabadeedna inaan insha allah ku guuleysto ayaan la rajeynaya heestana aanbaan ogub dhaxaadkii inaan ku maraan doona insha allah saamiye maxaad ku jeclaatay fanka wallaahi horta fanku nagama dheero
dabraday baa fanka ku jirta oo hibo qoroof la yiraahdo marka bacdeen aniguna waan jeclaystay reer baan wala galnaa marka waan jeclaystay habka fanaanimada marka inaan ana sidaas oo kale aan noqdo ayaan jeclaystay faamigii mu ku ogolay faamigii wuu ogol yahay marka qofkii saddexaad ee fanka ku biiray baan reerkayga marka insha Allah inay guuleystaan iskool ma dhigtaa iskool may wax iskool oo dhigtay ma jirto waan iska fadhiyaa sida heeskaay ambanudub dhexaadkiyo irkiya wadnahayo isgaadhsiinta dhigiyo oon tiraha beerku laliga baxayo oon tiraha beerku laliga baxayo ambanudub dhexaadkiyo irkiya wadnahayo isgaadhsiinta dhigiyo oon tiraha beerku laliga baxayo oon tiraha beerku laliga baxayo naftayda agtaadiyo aragaaga jecelo indhaha ku weheshada idil wax yahaygiyo adhaxda iyo laabtiyo xubnaha laga adeege awoodeena fuliyaal ku exaysanayo awoodeena fuliyaal ku exaysanayo naftayda agtaadiyo aragaaga jecelo indhaha ku weheshada ما شاء الله سامية إبراهيم soo joogsiga masraxaad soo joogsatay iyo saad isku sheegtay ama isku presentation hal baan ku siiyey codka 5 baan ku siiyey teembada la socodkeeda hogaaminaysa in heesta 4 baan ku siiyey chestiga waxaan ku siiyey 5 hadalladaada sida aan u fahamnay u soo gaarsiinaysa dadkana 5 baan ku siiyey saamiye ibraahim soo joogsigaad soo joogsatay hal baan ku siiyey voiga waxaan kugu siiyey 3 ritmiga waxaan kugu siiyey 3 actionka waxaan kugu siiyey 3 soo gaarsiintana soo gaarsiisana 3 baan kugu siiyey saamiye ibraahim waan ku salaamay marka hore soo galista hal baan ku siiyey codkana 5 baan ku siiyey turbaan la socodkana 5 baan ku siiyey fiisiga ama sida tilmaanta wajiga iyo dhaqdhaqaaqa waxaan ku siiyey 3 soo tabinta hadalladana waxaan ku siiyey 5 سامي إبراهيم habkaad masraxa soo joogsatay waxaan ku siiyey habad codka 4 baan ku siiyey ritmiga 5 baan ku siiyey jeestiga 4 baan ku siiyey habkaad midhaha noo soo gaarsiinaysana waxaan ku siiyey 5 waa bon chance waa maasan insha Allah haduu ilaahay يا سلام فناندي آمنة فرح أيان هدي أنا قلدمين أنا كرابة عود كيجيبه ست توس أقبل داير لنا درجيسي سامية عبدي سامية إبراهيم آمنة فرح هي سهيدا قدم بي يضو هي سقعي وآد ساعدها هبين كي مركا إتاي ساعدها الضمبة قلوين كتشيل بلابن أي نقص الصدان أي صوصارتي هذا نوحة كجرا هاس عشاء تجان عبار دا وضوع عقلي إنه هو لا عجبين على الصبيح أبوانكي وينايا الصوماليات حسن جني بمالين على الصبيح تجي مركز أمريكي وعلى الصبيح تجي إسلامالين تيبا وحى كعرتي هاس كاسي عشاء تجان عبار دا وضوع عقلي يندفو ولا عجبين على الصبيح يعيد ذهبلي أنت أنا جاي ما ضو آمنة فرح يو هاس كيدي على الصبيح مركن يا هاتنا سمتر عنو يرو سمتر عسوي سود ومسرح أي مدشة مجا جوس الدحن مجا فنان كأدورتي هاس تأد كله قينتون تصلوا
السلام عليكم waxaan hambaleynayaa idaacadan soo qabaqaabisay maanta waxaan ku faraxsanahay anoo hor jooga fanaaniintii qaaliga hore aan ku faraxsanahay oo maanta waxaan ku laqeynayaa fursheed fanaanka fursheed iyaan xiiseeyaa Allah naxariisto wallaahi markasta waan xiiseeyaa markasta aan qaylayo haddaan fadhiyo waan xiiseeyaa heesihiisoo dhan aad baad u jeceshahay soo ma ahay sax inaad qaato aad iyo aad baan u jecelahay baraatig badan ma soo samayso wallaahi carooso badan baan ka haysan inta badan kalsooni buuxdana waad isku qabtaa waalidku ma ku ogolyahay sama waalidku aad iyo aad buu ogolahay iskool ma dhigataa iskool waxaan ka baxay lisiyaan kaga baxay ishkaasada qaban jiray ishkaash oo iyadoo badhad maraysaad ka baxday ya adoo badh ku jiraad ka baxday anoo badh ku jira inta kalena waad biirsan kartaa insha Allah daayar tahay insha Allah adoo fankaaga jecel iskoolkaaga waad iska dhigan kartaa waan kugu hambaliyeynayaa heeska magaciisa muxuu ahaa baad tidhi fursheed heeska magaciisa waan dhintaa waan dheelmadaa Allah yarxamo fursheed baqaajire iyo siciid baa wada qaadan soo dah waan dhintaa waan dheelmadaa dhaayahaygan ka jeclaa waan dhaqaaqay hadday tiri dhagar islaam baan soo dugaa ayaa wanaagsan wehelisiiya walaalayaal ayaa wanaagsan wehelisiiya walaalayaal ahey way walaalayaal waajibkii iyo wacadkii walaalayaal wadaadii samayd waajibkii iyo wacadkii walaalayaal wadaadii samayd markaan ka weecday anaa iswaday anaa iswiiqo weedhaa isbaday markaan ka weecday anaa iswaday anaa iswiiqo weedhaa isbaday ayaa wanaagsan wehelisiiya walaalayaal ahey way walaalayaal wiiqsanay weedhan maqlaa samatar casowe presentationka ama masrax soo fulidda aad sidaad maaragtay isku caddaysay hal baan ku siiyey codka labaan ku siiyey teembada sida loola socdo hogaaminaysa heeska 3 baan ku siiyey fisikama jir ahaan ama shucuur ahaan sidaad wax ku macnaynayso gacmahana ku macnaynayso heeska 2 ku siiyey codka aadna soo gaarsiisay sidaan u fahmaynana 3 baan ku siiyey samatar soo joogsiga waxaan kugu siiyey 1 codka voaga waxaan kugu siiyey 4 ridmiga waxaan kugu siiyey 4 jeestiga 3 baan ridmiga kugu siiyey ya jeestiga 4 baan kugu siiyey saad noo soo gaarsiinaysay soodka na waxaan kugu siiyey 2 samatar casoobo waan ku salaamay anigu soo galitaanka 1 baan ku siiyey codka 2 baan ku siiyey durbaan la socodka 2 baan ku siiyey fiisiga iyo jirka 2 baan ku siiyey midha soo tabintana 3 baan ku siiyey samatar casoowe habkaad masraxa u soo joogsatay waxaan ku siiyey xabad baan ku siiyey codka 3 baan ku siiyey ridmiga 2 baan ku siiyey jeestiga 3 baan ku siiyey habkaad midhaha noo soo gaarsiinaysana 2 baan ku siiyey bon chance okay assalaamu calaykum ka qayb gala tartanka maxamed cali fursheed allah u naxariisto isaga iyo intii kale geeriyootay samatar iyo heeskiisii waan dhintaa waan dheelmadaayo dhaayaha igaan ka jecla waan dhaqaaqay haddii aad tirina dhagar islaam baan soo duwa jacaylku waxa uu karaamalaha mararka qaar inuu dhagar ku geliyo inkastoo maxamed aadan uu lahaa weli kuma aqoonsani ma ifkaan ku eegaa oo waabadii iman mise iilka hoosaan kugu eemameeyaa marka
ما تشكارسي محمد مسكارون ما تشكار بيهاد مسكارون بيهاد وأنا سكتي كارتمي يدي واتا سو لسه ما كارتمي كرو واتا كل سوال ولا أنا وين كارتمي يدي واتا مركز أنا ولي كم بقى قنصني باتر إن كستو ضد كقار ما بقى قنصني بالله أنها واتا لكن فؤاد مالين كستا يو مجر كستا يسوق بالكستا وكل عسبي جعل عسب إنما بان كل الله سو كل كاس أنا بس هذا كقولنا واتا ما الله بعض قيب ثمي قلبي قاعد يقول له شيء لا حبضنا والله واثق بالمقص وحلبي marka fuad bay ku socotay sheekadaasi wala si kasta baa noqoto markan Yaxye Cabdulqaadir baan u yeeri doonaa Yaxye magacaaga saddexan magaca fanaanka aad dooratay iyo waxaad noo sheegtaa heesta aad tartanka kaga qayb qaadanayso masraxa iyo madashana ku soo dhawow marka ugu hor assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacayga Yaxye Cabdulqaadir Usmaan Balala waxaan ku heesayaa heestii Cabdul Xamar Qood ee qarni waliba dhaqankiisa marka labaad maasintiina saad maartay qalbigeena aad wixii qalbigeena ku jira aad ku ogaateen in aad maartay aad haybadeeda dibadda soo saartiin ku maasintii taas الله يرحمه مرحومكي سعيد حمر قود فنانكيغي قالغا عبدو حمر قود اياد هيسي سقاديسا رونهانا واد سيدتا هديهيسي او هدي جير u badnaa marxuumka Allah u naxariistee waxaan jeclaan lahayn waliba adoo codkiisina noogu dhawaaq hadhow hadii alla yiraahdo maxaad ku jeclaatay fanka iyo inaad soo gasho oo ka mid noqoto fanaaniinta horta wallahi marka hore fanka waxaan ku jeclaaday waxaan isdareemay horta qalbigaygu inaan codkaygu fiican yahay oo maartay heeso ku qaadi karayo ama maartay fanaaniintii guureysay codka macaan codkooda kale inaan leeyahay marka waxaan jeclaaday in aniguna si iyagu codkooda dibadda ugu soo bixiyeen aniguna codkayga dibadda ugu soo bixiyay ma sha Allah aad baan kugu hambalyeynaya direyskaas sida tiyo sida aad ugu soo tala gashay maadaama daas qaadayso aad isku soo kaysiisay waalidkaagu raalli miyuu ka yahay ها راليكيا inaad heesto ها راليكيا haddii lacalla baad ku soo baxda maanta halkan oo tartan dambe ku hadho ka dambana ku soo baxdood guulaysato maxaad isleedahay waad ku soo kordhin kartaa fanka wallahi waxaan doonaa inaan ku soo kordhiyo horta wixii qurux badnaa oo dhanba fanaaniinta intii hore oo dhanba soo wada sameeyay wax qurux badan oo arkayo dad dambe ma jiroba waxaan oran lahaa ragii ugu horeeyay ma isku kaysin sidoo intuu wiil iyo gabadhi jirto fanku uu joogayaa haddii alla yidhaah ma aan kugu hambalyeynaa heesta sii daadaba qarni waliba dhaqankiisa qarni waliba dhaqankiisa waa inuu ku dhaata waa inuu ku dhaata sowmadaada lama dheego dhaxalkiiyo wogaaga mid la dhaafi karo maaha sowmadaada lama dheego dhaxalkiiyo wogaaga mid la dhaafi karo maaha dhaaxiyo dharaar sibiqday dhidibkii lagu waasay ee laysku soo dhiibay dhaaxiyo dharaar sibiqday dhidibkii lagu waasay ee laysku soo dhiibay dhexdayaa u joogsaday dhidibkii sayaaba dhexdayaa u joogsaday dhidibkii sayaaba dhidig iyo laboodkiiba dhidig iyo laboodkiiba dhalin yaraada maantay dhalin yaraada maantay dhiska dumay ku dheeldheeshe dhool meel foka hilaacad dhaayaha la sii raacdeen gacmaha rakaliyootay dhaxanka micilyaane dhogorti maxaaduurshay gacmaha rakaliyootay dhaxanka micilyaane dhogorti maxaaduurshay isku dhee ma dhalasha dhutiskuna ma quruxba isku dhee ma dhalasha dhutiskuna ma quruxba
aad baan ku hambalinayaa yaxye garashadaydi markaan sukaystay soo galitaanka labaan kugu siiyey codka 5 baan ku siiyey durbaan la socodka 5 baan ku siiyey fiisika 5 baan ku siiyey midhasoo 14 baan ku siiyey yaxye cabdulkaadir habka masraxa u soo joogsatay xabad baan ku siiyey codka 3 baan ku siiyey ridmiga 3 baan ku siiyey jeestiga 4 baan ku siiyey habka mulaha loo soo gaarsiinaysana 4 baan ku siiyey yaxye masraxa soo joogsigiisa 1 baan ku siiyey codka 5 baan ku siiyey ritmiga hogaaminaya heeska 5 baan ku siiyey jeestiga iyo shucuurta kugu jirta ee aad ku macnaynayso heeska 5 baan ku siiyey sida hadalladaadu kolka ay soo gaadhaan loo fahmayo ee fasiixa aad u tahay 5 baan ku siiyey yaxye soo galidda waxaan ku siiyey 1 codka waxaan ku siiyey 3 ridmiga waxaan ku siiyey 4 actionka waxaan ku siiyey 2 saad noo soo gaarsiinaysay soodkana waxaan ku siiyey 3 bon chance nasiib wanaagsan isku dheh ma dhalasha dhutiskuna ma quruxba dhan kalena dhacmaha rag kale oo tay dhaxanka ma celiyaan dhagortii maxaa doorshay heeskaasi waqti hore dabca lagu qaaday waxa dhici kartaba maxamed aadan in dhutiskan xaragada imika sida loo socday dhalinta qaar ay u socotay u xaragoodaan ee dhutiska inayba jirin waagaasi abwaanka iyo fanaanku mararka qaar waa in dheergarado waxay sii arkaan waxa soo socda ayay ka sii hadlaan heestu waxay ahayd hees dhalinyaradii waqtiga rawaada la sameeyey 3 baa isku faantay bay ahayd dhalinyartu waxay ka sii socdeen dhaqankooda inta badan ka sii socdeen ilaahay naxariis jannaasi xasan cilmi waxa uu jeclaaday in uu ku soo celiyo maxaan ku dhahdaa dhalinyarada dhaqankiina ku soo celiyo dhutiskan ma uu jirin waa run laakiin waa wax haddana ilhaam ilaahay uu siiyey weeyaan oo fanku waa xikmad ilaahay uu qofka bani aadamka ku abuuro weeyaan wax soo socda iyo wax jooga iyo wax tagay intaba way ka hadlaan abwaanadu oo way suugaan bay kaga hadlaan heeskaasi wuxuu ahaa hees uu riwaayadda gebigeeduba waxay ahayd riwaayad uu doonayay sidii ay dhaqanka ugu soo noqon lahaayeen maxaan ku dhahdaa dhalinyaradu oo sumadaada lama dheego dhaxalkii adoogana mid la dhaafi kara maaha waa kan ku soo daray dhutiskuna ma socod baa quruxba ma quruxba maanta waxaan arkaynaa dhalinyartii oo yani qoladii maraykanka ahayd matalayso haddana aad laangara wada muuqdo quruxna maaha kolka runtii la doonee waa wax fool xun weeyaan iyo hu qaadashadii oo aad moodid inay iyaduna waxaan qurux ahayn ama laga faani jiray dhalinta maanta ay mararka qaar dad qaarkood ay ku kacaan qaarkood baa ku kacaa saraawiil jeexjeexan oo xagga buudooyinka ka jeexjeexeen bay qaadanayaan oo qurux weeyaan bay ku leeyihiin iyo kula dhaadhiciyay si aad la dhaadhiciyo xagga futada la muujinayo kalsoonkii muuqdaa waa qurux lagu leeyahay qurux maaha waxaasi waa qushaashnimo waa tahay si kastaba ha noqotee fankeenu waxa uu ahaa mid aan odhan karo waxa uu ahaa mid ka jawaaba baahida wacyigelinta iyo waxay bulshadu u baahan tahay dhan walba oo waagaas ayna jirin dhutisku ayaa xasan cilmi allah u naxariistay uu ka sii hadlo oo yiri dhacmaha rag kale oo tay dhaxanka ma celiyaan dhagortii maxaa doorshay kol dhacmaha rag kale oo tay hadii adiga ayna dhaxanta ka celinayn maxaa dhagortaada doorin kar dhacmaha uu kale oo tay kol hadayna dhaxan ka celinayn adiga maxaaba dhaqankaaga iyo hidahaaga inaad u dhaafto kugu qasbay faadumo aad ku heesta in yaro aan ku daree waxa ku jirta ruwaada markab dhoof u baxayo u dhaqaaqay Oroob ninka dhiga ka fulo aduu dhoorku ku daali bariga qaxootiyadii waxba ma noqon ma waa tahay haddana waa kan maanta adarkaysi tahriib baa jira qofkiimaayna tahriib wax la yiraahdaa jiro inta ay qof baa badda waaduna shalay iyo maanta iyo bariba sida laga sameeyay ka bari iman doona iyo kii shalay oo soo noqday iyo qoladii maanta isku wadayn marka saddexda maalmood baaba isku faanaya saddex baa isku faantay marka ka iman doona iyo ka joogay iyo kii hore tago soo noqday oo maxaa ka dambeeyay waa tahay
naqdambeed iyo shalay iyo maanta iyo berri baa isku faanay saddex baa isku faantay murtidii iyo xigmadii aan ka baranay sidaas bay ahayd markana waxaan u yeedhi doonaa Mustafa Cateeye Mustafa magacaaga oo saddexan magaca fanaanka aad dooratay oo saddexan isaguna iyo heesta aad ku heesi doonto magaciiga masraxa iyo madashuna adiga ay ku furan yihiin ku soo dhawow marka hore soo salaamantiin dhamaantiin waan ka qaabisay waxa aan doortay fanaanka Saciid Xamar Qoodh heestii ahayd dadku naxariisna Allah siiyo naxariisna iyo nabadgelyo Ilaahay siiyo magacaaga ma sheegin magacayga oo Mustafa Cateeye Cabdiya Mustafa Cateeye Cabdi Mustafa fanaankaay waa fanaankii noogu weynaa waa rukunkii fankayaga maxaad ku jeclaatay adu fanaanka waxaan ku jeclaaday mar intan ka yaraa way iska jirtay inta uu dhiman dhawaan buu dhintahay waan xiisan jiray siisa aad baad u xiisan aad iyo aad baan u xiisan inaad fanaan noqotana waa doonaysaa inaan fanaan noqdana muddo ilaa ma kula tahay inaad heerkiisii oo kale inaad gaadho aad doonayso may kula tahay waa ila tahay haddii aan dadaal sameeyo ilaahay la garab galo waan gaari karayaa sida heeska waa fiican gabariyo wiil gacaliyo xigaal geesigii haye heerku gaaraye garab jooga baaway urdada gam'e ani way galgelin waxaan guuraye gocla rooraye u godob noqde ani way galgelin waxaan guuraye gocla rooraye u godob noqde gullow allow kaladlow ilaah gullow allow kaladlow ilaah adu noo gargaar oo gacanna sii adu noo gargaar oo gacanna sii gaygu daadii dunyow dhistaba hoy geesigii haye heerkuu gaaraye garab jooga baaway hurdada gam'e gaygu daadii dunyow dhistaba hoy geesigii haye heerkuu gaaraye garab jooga baaway hurdada gam'e gullow allow kaladlow ilaah gullow allow kaladlow ilaah adu noo gargaar oo gacanna sii adu noo gargaar oo gacanna sii Mustafa Cateeye soo joogsigaad soo joogsatay aad ismacnaysay hal baan ku siiyey codka labaan ku siiyey durmaanka hogaaminaya heeska ee teembada la yidhaahdo labaan ku siiyey gacmaha aad ku macnaynayso saddex baan ku siiyey codkaaga hadallada sida aad u xafiday ay nagu soo gaadhayaanna labaan ku siiyey Mustafa Cateeye soo galidaadanu hal baan ku siiyey codka labaan ku siiyey ridmiga waxaan ku siiyey saddex actionka waxaan ku siiyey laba sidaad noo soo gaarsiinaysayna saddex baan ku siiyey Mustafa Cateeye anigu soo galitaanka hal baan ku siiyey laba codkaan ku siiyey durbaan la socodka labaan ku siiyey fiisiga iyo dhaqdhaqaaqa jidhkana waxaan ku siiyey laba soo tabinta midhaha saddex baan ku siiyey Mustafa Cateeye soo joogsiga masraxa waxaan ku siiyey xabad codka labaan ku siiyey ridmiga xabad baan ku siiyey jeestiga labaan ku siiyey habkaad midhaha noo soo gaarsiinaysana labaan ku siiyey bon chance daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo sida aad arkayseen oo aad la socoteenba Mustafa Cateeye waxa uu ahaa qofkii u dambeeyay ee shanta barnaamijkan caawa inay ka qayb qaadato diyaarka u ahaa waxa hubaala inay cid guusha ku raaci doonto waxaana jirta inay codadka dhalintu kulley mararka qaar ama barnaamijyada qaar ay isku soo hagaagaan kuwa aan kala laalaadin sidii barnaamijkii kan ka horeeyay oo kale si kastaba ha noqoto ee guddiga sharafta leh waxa ay ku hawlan yihiin haddii xataa la isku dhawaado oo la kala dhici waayo in haddana sidii kolba ay lagama maarmaan u noqoto in dhalintaasi loo kala saaro iyaga oo cadaalad iyo dhan walba eegaya ay u kala saaraan markan iyo haatan maxamed aadan dugsiye waxay soo gaadhay xilligii aad fooda isgelin lahaydeen wixii aad qarsateen ee nin kastiba is uu u qoray kadibna aad dhalinta horteeda ugu sheegteen inaad isku geysaan oo dhibcaha sidii loo kala mutaystay aad noo sheegtaan waa mahadsantiina
beeniyo wacadkii ka jebiye bowdada maantana baryo samaye raggu hau bardhigi jiray haween baadilkooge hayga goosan biilide iga jooji baana bay lahe tegay ama caashaq laga buray anaa buuxinaaye kale baashaygow jecelkeeni baaba'ay dib u soo bilowne aado beri samaadkii iisoo bannaan baxay ana kuu baneeyayo bogan waayo hawshee dumar waa bahaayine mar dambaan baraarugay miyadii bugtaa weli aanbaanudub dhexaadkiyo irkiya wadnahayo isgaadhsiinta dhigiyo oon tiraha beerku ololiga baxayo oon tiraha beerku ololiga baxayo aanbaanudub dhexaadkiyo irkiya wadnahayo isgaadhsiinta dhigiyo oon tiraha beerku ololiga baxayo oon tiraha beerku ololiga baxayo naftayda agtaadiyo aragaaga jecelo indhaha ku weheshada idil wax yahaygiyo adhaxda iyo laabtiyo xubnaha laga adeege awoodeena fuliyaal kuweexaysanayo awoodeena fuliyaal ku eexaysanayo waan dhintaa waan dheelmada dhaayahaygan ka jeclaa waan dhaqaaqay hadday tiri dhagar islaam baan soo dugaa ayaa wanaagsan wehelisiiya walaalayaal ayaa wanaagsan wehelisiiya walaalayaal ahey way walaalayaal waajibkii iyo wacadkii walaalayaal wadaadii samayd waajibkii iyo wacadkii walaalayaal wadaadii samayd markaan ka weecday anaa iswaday anaa iswiiqo weedhaa isbaday markaan ka weecday anaa iswaday anaa iswiiqo weedhaa isbaday ayaa wanaagsan wehelisiiya walaalayaal ahey way walaalayaal wiiqsanay weedhan maqlaa qarni weliba dhaqankiisa qarni weliba dhaqankiisa waa inuu ku dhaataa waa inuu ku dhaataa sowmadaada lama dheego dhaxalkiiyo wowgaaga mid la dhaafi karo maaha sowmadaada lama dheego dhaxalkiiyo wowgaaga mid la dhaafi karo maaha dhaaxiyo dharaarsi biqday dhidibkii lagu waasay ee laysku soo dhiibay dhaaxiyo dharaarsi biqday dhidibkii lagu waasay ee laysku soo dhiibay dhexdayaa u joogsaday dhidibkiisayahaba dhexdayaa u joogsaday dhidibkiisayahaba gabar iyo wiil gacal iyo xigaal geesigii haye heerkuu gaaraye garab joogabaaway urdada gam'e ani way gelgelin waxaan guuraye gocla rooraye uu godob noqde ani way gelgelin waxaan guuraye gocla rooraye uu godob noqde gullow allow kaladlow ilaah
gulow allow galadlow ilaah adu noo gargaar oo gacanna sii adu noo gargaar oo gacanna sii gayguu daadii dunyow dhistaba hoy geesigii hayee heerkuu gaarayee garab jooga baaway hurdada gam'ee gayguu daadii dunyow dhistaba hoy geesigii hayee heerkuu gaarayee garab jooga baaway hurdada gam'ee waxay soo guuxdaba xilligii guddiga sharafta leh kadib markii fooda ay isdareen isla eegeen ee dhan walba ay ka fiiriyeen dhabcihii kala duwanaa ee dhalintaasi ay heshay ay ku dhawaaqi lahaayeen maxamed aadan dugsiye waxaan jeclaa inaad makarafoonka qaadato oo dhabcihii dhalintaasi aad siiseen ee kala duwanaa aad noo sheegto nakruma axmed halkaa u bax nakruma guddidu kolkii ay wixii nin kastaba iskii u qorayey kolkii la isku geeyey ee la falanqeeyey dhan kasta laga eegay waxa aad mutaysatay oo aad heshay 15 buura ah ayaad heshay saamiya ibraahim saamiya ibraahim guddidu kolkii ay isku tageen ee ay madaxa isgesheen waxay ku garteen oo heshay 17.75 samatar casowe samatar casowe dhan kasta kolkay ka eegeen guddidu waxa ay ku siiyeen 11.50 yaxye cabdulqaadir yaxye cabdulqaadir dhan kastaba kolkii laga eegay horta waadna cajabisay baatiin kama dhigna waxba kama dhignidin kama dhigna waad fiican tihiin siiba ninkaa dheer oo maxaan ku dhahay yaxye la yidhaahdo yaxye haddii aad dadaalkaaga sii wado ka koowaad baad sheegaya ka ugu sarreeyaad noqoni doontaa xaqiiq weeye hadalkaasi aanbaanudub dhexaadkiyo irkiya tale kadib markii fooda ay isdareen isla eegeen ee dhan walba ay ka fiiriyeen dhabcihii kala duwanaa ee dhalintaasi ay heshay ay ku dhawaaqi lahaayeen maxamed aadan dugsiye waxaan jeclaa inaad makarafoonka qaadato oo dhabcihii dhalintaasi aad siiseen ee kala duwanaa aad noo sheegto nakruma axmed halkaa u bax nakruma guddidu kolkii ay wixii nin kastaba iskii u qorayey kolkii la isku geeyey ee la falanqeeyey dhan kasta laga eegay waxa aad mutaysatay oo aad heshay 15 buura ah ayaad heshay saamiya ibraahim saamiya ibraahim guddidu kolkii ay isku tageen ee ay madaxa isgesheen waxay ku garteen oo heshay 17.75 samatar casowe samatar casowe dhan kasta kolkay ka eegeen guddidu waxa ay ku siiyeen 11.50 yaxye cabdulqaadir yaxye cabdulqaadir dhan kastaba kolkii laga eegay horta waadna cajabisay aad baad noo cajabisay kolka runtii la doono fanaanka aad dooratayna waad matashay si fiican baad u matashay haddana kulle iyo kulle haadbahaadkici baa jirta kelmad la yidhaahdo waxa weeye yaxyow waxaad adigana ay ku siisay guddidu 13 17.50 mustafa cateye mustafa cateye guddidu kolkay isku tagtay nin kastaba wuxuu qoray la isku geeyey waxay ku siisay
9.75 shanta qof ee halkan iskugu timiday gabadh baa guulaysatay gabadhaay waa Saamiya Ibrahim oo ku guulaysatay 17.75 dhibcood hambaliyo ayaan ku leenahay in yar kama dhigna